السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله كسو دواada channelka Somali Top waxaad kale kusoo dhawaataan mowduuc cusub aan kusoo kordhinay channelka oo ah waa kuma dabcan barnaamijka waa kuma inta badan waxaan kusoo qaadan doonaa shakhsi kamid ah shakhsiyaadka ama dadka ugu caansan qaaradda Afrika markana waxaan kusoo qaadanaynaa ama ugu horeysiinaynaa haleegii dalka Burkina Faso soo maray ee Thomas Sankara wuxuu dhashay 21 December 1949 wuxuu dhintay 15 October 1987 waxa uu ku dhashay magaalada Yoka ee dalka Burkina Faso. Thomas Sankara waxa uu ahaa kacdoomiste shacab sidoo kale waxa uu ahaa qof taageera fikrada siyaasadeed iyo dhaqaalaha heerkiisii waxbarashada. Thomas Sankara waalidiintiisii oo haystay diinta Roman Catholic waxa ay rabeen inuu noqdo wiilkooda wadaad laakiin waxa uu doortay inuu galo ciidamada militariga ee Aberfolta waxa uu galay akademiyada militariga ee Kadigo oo ku taala magaala madaxda Aberfolta ee Ouagadougou iyadoo akademiyadu ahayd markii ugu horeysay ee la furo 1966 waxa lagu qaatay da'daas 17 jir isla sanadkaas waxa uu goobjoog ka ahaa abaabulkii ugu horeeyay ee dhisidda militariga ee Aberfolta oo hogaaminayay Colonel Sangola Lamizana sanadkii 1970 markii uu jiray 20 jir. Sankara waxa uu sii watay daraasadihiisii militariga isagoo aaday akademiyada militariga ee Antwerp ee jasiiradda dalka Madagascar halkaas oo uu uga qalin jabiyay sarkaal hoose 1973 sidoo kale waxbarashada culumta militariga maadooyinka lagu baranayay waxa uu sii dheer ahayd in loo ogolaaday Sankara inuu wax ka barto beeraha oo uu daraasadeeyo culumta wax soo saarka beeraha waxa uu mowqifkiisu ahaa in marka uu dalkiisa Aberfolta ku noqdo horumariyo nolosha beeraleyda wadankiisa si wadankiisu horumar uga gaaro wax soo saarka beeraha oo ay qeyb ku tahay Aberfolta. waxa uu sidoo kale ku soo qaatay oo uu soo bartay culumta maamulka muddada 3 sano ee uu ku sugnaa akademiyada waxa uu akhristay taariikho iyo istiraatiijiyado military si uu uga helo fikrado iyo qaabab falanqeyn dhanka cilmiyeysan ee ku aadan horumarinta bulshada. waayihiisii ciidanimo waxa uu ku soo laabtay Aberfolta 1973 wuxuuna ka dagaalamay dagaalkii xuduudaha ee u dhaxeeyay Aberfolta iyo Mali sanadkii 1974 waxa uu caan ku noqday ficiladiisii geesinimada ahaa ee dagaalkaasi. waxa uu sidoo kale noqday qof caan ka caasimadda Aberfolta. Sankara waxa uu ahaa qof ku wanaagsan garaacida gitaarka 1976 waxa uu noqday taliyaha xarunta tababarka ciidamada ee Po isla sanadkaasi waxa uu Morocco kula kulmay Blaise Compaoré sidoo kale muddadii uu xilka madaxweynenimo hayay Colonel Siana Zero. Thomas Sankara iyo askar dhalinyaro ah oo kooban ayaa sameeyay urur qarsoodi ah oo la yiraahdo Community Officer Group. xubnihii ugu caansanaa ururka waxa ay kala hayeen Hersi Zonga, Jean Baptiste, Bokare Lengani, Blaise Compaoré iyo Thomas Sankara. Sankara waxaa loo magacaabay xogayaha militariga Aberfolta bishii September 1981 laakiin waxa uu iska casilay 22 Abriil 1982 isagoo ka soo horjeestay sida ay wax u socdaan markaasi. qabashadiisii madaxweynenimada ee dalka Aberfolta ama Ivory Coast afgambi uu hogaamiyay Blaise Compaoré oo ay saaxiibo ahaayeen Sankara ayuu madaxweyne ku noqday Thomas Sankara 4 Agoosto 1983 markaa oo da'diisu ahayd 33 jir. afgambiga waxaa taageeray dalka Liibiya sanadkii 1984 waxa uu bedelay magacii hore oo ay wadanku u bixiyeen gumeystihii Faransiiska ee ahaa Aberfolta isagoo u bixiyay Burkina Faso taas oo loola jeedo dhulka dadka sharafta leh. waxa kale oo uu naqshadeeyay calanka Burkina Faso wuxuuna qoray heesta astaanta qaranka ee Burkina Faso. Thomas Sankara oo ahaa 33 jir waxa uu hoggaanka u qabtay wadan ay ku nool yihiin 60 qowmiyadood oo kala duwan. qowmiyad walibana dhaqan gooni ah haysato markuu kursiga ku fariistay waxa uu awoodiisa iskugu geeyay sidii uu ku xakameyn lahaa ugana taqalusi lahaa awoodda qabiilada reer Burkina Faso taa oo markii dambe ku guuleystay. markuu guud ahaan la wareegay awoodda dalka waxa uu diiday inuu dib u bixiyo deynta lagu lahaa wadanka Burkina Faso. deynta ay ku sheeganayaan wadamada gargaarka u fidiya Burkina Faso IMF iyo bangiga dhexe adduunka. waxa uu ka soo horjeestay gargaarkii dibadda isagoo yiri qofka ku quudiya uu ku xakameynaya
waxa uu la hadlay in badan dalalka Afrika asagoo kula hadlay kulamada ururka midowga Afrika. waxa uu sheegay inay ka soo horjeestaan marxaladda cusub ee gumaysiga Afrika lagu hayo ee dhex maraya ganacsiga reer galbeedka iyo dagaalka ba'an ee lagu hayo kobaca dhaqaale ee qaaradda Afrika. waxa uu sidoo kale ugu yeeray dalkiisa Burkina Faso dalal ka mid ah wadamada Afrika asagoo u sheegay inay diidaan bixinta deymaha gumaystaha uu ku sheeganayo sida World Bank iyo IMF iyo dowladaha gargaarka bixiya si aysan faragelin dhaqaale ugu yeelan dalalkooda. waxa uu ku doodayay in wadamada saboolka ah ay ka faa'iideysanayaan wadamada reer galbeedka ah oo aysan wax dan gargaar ah ka lahayn, keliyana ay doonayaan in Afrika ay wiiqaan mar walba oo ay dhaqaalaheeda soo kabato, iyagoo gelinaya deymo fara badan oo ay awoodeen inay iska bixiyaan dalalka Afrika. Thomas Sankara waxa uu diiday inuu isticmaalo qaboojiye si xafiiskiisa loogu xiro, sababtoo waxa uu ku sheegay inaysan nasiib u wada helin shacabkiisa in ay xirtaan qaboojiyaha. sidoo kale mushaarkiisa ayuu hoos u dhigay isagoo gaarsiiyey 450 bishii mushaar ahaan inuu qaato. sidoo kale lacagtii dheeriga ahayd ayuu dib ugu celiyey dhaqaalaha wadanka. waxa uu diiday in sawiradiisa lagu dhajiyo goobaha dadweynaha. arrintaa markii la weydiiyey sababta uusan u doonayn in sawirkiisa lagu dhajiyo goobaha dadweynaha sida caadada u ah hogaamiyaasha kale ee Afrika, Sankara ayaa ku jawaabay waxaa jira 7 milyan oo Thomas Sankara ah. muddo 4 sano gudaheed Burkina Faso waxa ay gaartay heer isku filnaansho ah. waxa uu Sankara dadkiisii reer Burkina Faso ugu baaqay inay xoog saaraan wax soo saarka beeraha oo weligiiba ku haminayay inuu dalkiisa ku horumariyo. waxqabadkiisii intii uu xilkaasi hayay, waxyaabaha ugu waaweyn ee uu qabtay intuu xilka hayay waxaa ka mid ahaa Sankara waxa uu bilaabay barnaamijyo waxbarasho si looga hortago heerka akhris iyo qoris la'aanta ee wadankaasi uu gaarsiisanaa, ka oo markaa marayay 87 oo macnaheedu tahay dadka in ay kaliya wax qori karaan 13%, balse waxa uu gaarsiiyey dalka in 73% ay dadku wax qori karaan wax akhrin karaan. waxa uu ku beeray dalka Burkina Faso in ka badan 10 milyan oo geedo si looga hortago xaalufinta dhirta iyo nabaad guurka carrada. waxa uu hoos u dhigay mushaarka shaqaalaha rayidka oo dhan si wadanka dhaqaalihiisa loogu kabo karna loogu qaado adeega bulshada ee reer Burkina Faso. hagaajinta xaaladaha haweenka bulshada Burkina Faso waxay ka mid ahayd bartilmaameedyada dhabta ah ee Sankara. xukuumaddiisa waxaa ku jiray tiro badan oo haween ah. waxa uu haweenka siiyey mudnaan siyaasadeed ee aan horey loogu arag galbeedka Afrika iyo guud ahaanba Afrika. dowladdiisii ayaa mamnuucday naafaynta xubinta taranka haweenka iyo guurka qasabka ah. waxa uu dhisay jidad iyo wadooyin tareen kuwa oo guud ahaan isku xiraya wadanka isagoo aan wax gargaar ah weydiisan dalalka gargaarka bixiya. waxa uu iibiyey dhammaan baabuurtii dowladda ee Mercedes-ka kuwa oo ahaa qaali markaa. waxa uu ku bedelay Renault 5 baabuurta markaasi ugu jabnaa dalka Burkina Faso. baabuurta rasmiga ah ee wasaaradaha dowladda si dhaqaalaha wadanka loo ilaaliyo. waxa uu dhulalkoodii dib ugu celiyey shacabkii lahaa dhulka beeraha si ay uga shaqeystaan wax soo saarna uga sameeyaan dalka. wax soo saarka beeraleyda ayaana kor u kacay 75% intii u dhaxaysay 1983 ilaa 1986. magaala madaxda Burkina Faso waxaa ku yaalay istoorka kaydka ciidanka Burkina Faso, balse Thomas Sankara waxa uu u bedelay suuq weyn oo dalka oo dhan u furan qof walbana ka ganacsan karo. waana suuqii ugu horeeyay ee dalka Burkina Faso. waxa uu ku qasbay shaqaalaha rayidka inay mushaarkooda hal bil ku bixiyaan mashaariicda guud si loogu dhiso suuqa weyn. waxa uu faray shaqaalaha rayidka inay xirtaan dharka laga soo saaro gudaha wadanka, sababta oo uu ku sheegay in lagu tiirsanaado warshadaha dalka iyo in la ilaaliyo sharafta warshadaha gudaha dalka Burkina Faso halka la ilaalin lahaa sharafta warshadaha dalal shisheeye. waxa uu asaga oo dadkiisa u khudbeynayay ku yiri waxa aan rabaa in dadku ii xasuustaan sidii qof naftiisa noloshooda ku caawiyay si bini'aadantinimo ah. dilkii Thomas Sankara 15 Oktoobar 1987. Sankara asagoo oo 37 jir ah waxaa jiray koox hubeysan
ayadoo 12 ay ka mid ahaayeen saraakiishii ka tirsanaa afgembigiisii Burkina Faso. waxaa dilka soo abaabulay saaxiibkii Blaise Compaoré. dhibaatada xiriirka wadamada deriska ah ayaa ka mid ahaa midda loo sabaynayo dilka Sankara, iyadoo oo Blaise Compaoré uu sheegay in Sankara uu khatar ku yahay xiriirka diblomaasiyadeed ee horey uga dhaxeeyay gumeystihii Faransiiska iyo dalka Ivory Coast. isbuuc ka hor dilkiisa ayuu Sankara ku dhawaaqay hadalkan: inkastoo kacaanada si shakhsiyan loo dili karo, ma dili kartid fikradaha kacaanka. markuu dhintay waxa uu hanti ahaan uga tegay dunida 1 baabuur, 4 baaskiil, 3 gitaar, 1 qaboojiye iyo 1 barafeeyo oo aan shaqaynayn. gabagabadii Blaise Compaoré waxa uu xilka madaxweynenimo ee wadanka Burkina Faso la wareegay 1987 kadib dilkii Thomas Sankara. waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalka Burkina Faso sanadihii 1991 1998 2005 iyo 2010. doorashooyinkaasi oo ahaayeen kuwo aan cadaalad ahayn, waxa uu xilkaasi iska casilay 31 Oktoobar 2014. waxa uu u baxsaday dalka Ivory Coast ilaa xilligani oo weli lagu haysto dilkii Thomas Sankara. waxa uuna dalka Burkina Faso madaxweyne ka ahaa 27 sano. si kastaba ha ahaatee, hogaamiyihii kacdoonka ee Thomas Sankara ayaa dhiirigeliyay iyo tusaale buuxda u noqday dhalinyarada qaaradda Afrika. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii aan ugu magac darnay waa kuma. sidoo kalena taariikho kala duwan oo shakhsiyaad ah ayaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar. haddii aad horey ga mid ahaydna ka qayb qaado barnaamijka kobcintiisa oo share, like iyo comment ba. waa maxamed abduqaadir oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.